السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها قلبك إيا قلوبتك حردنا أدبانيني سلاني واختياد قروح بدن نولل وناكسن يا عافيمات تاما يعني ذي رجيني ناكو سور دوادا كنال كينان عافيماتك يا دكتورك عافيماتك غويسك مقال كناتك كوبان وحينو كاقهالينا ولا لك ترسن بلشدا إنو آتك وتشعن لها يا وحا يسكو أركان ama ay dareemaan inay xilliyada qaar ay ku dhacaan wax loo yaqaan cell damage ama nudayaasha maqaarkeena uu ka samaysan yahay iyo tissue-ga uu inooga samaysan yahay jirkeenu inay dhaawacmaan kadibna ay xanuun dareemaan dhibaato ay dareemaan mashkilad ay halkaas ay ka dhalato ha noqoto dhabarka garbaha luqunta iyo all that things waxaynu dabcan u sheegaynaa laba qaybood oo arinta loola tacaal mid waxa weeyaan nudayaasha dhaawacmay ee markaa damage garoobay ee dhaawacu gaadhay sidii loo soo kabayo iyo ka qayb qaadashada dib u hagaajintooda sida loo samaynayo repairing damage tissue arintaasi waa arinta dabcan muuqaalkeenu kaga hadlayno laba wadiiqo ayaynu raaci doonaa ama laba wado wadada koobaad waxa weeyaan inaynu nutritional balance-ga qofka soo kicino oo jirka nafaqada uu u baahan yahay uu helo midda labaadna waxa weeyaan mid uu dabada ka samaynayo oo qofku isku masaajayo ama loogu masaajayo labadaas ayaa muuqaalkan aadka u koobanaynu ku wada wadaagi doona markay nudayaashu dhaawacmaan qaabkay doonaanba ha u dhaawacmaan ama jug ha ku dhacdo qofka ama si qaldan ha u sameeyo ama waxyaabo ha gaadhaan ama marka si nafaqadu ay ku yartayba ha u dhaawacmaane xilliga qofku uu dareemo xanuun uu ka dareemo dhabarka murqaha garabka iyo luqunta waxa weliba qofku uu dareemayo meel specific location meel u gaara oo markaas localized xanuunka iyo xumadu inay meel gooniya ay ka socoto qaabka arinta uu daweynayo ayaa muuqaalkan aynu daha uga qaadayna isaga oo gurigiisa jooga waxaanu marayaa wadada saxda iyo dariiqada saxda ee aanu qofku naftiisa wax ku yeelayn laakiin uu iskala tacaalayo dhibta iyo dhibaatada ku dhacday qodobka koobaad aynu u nimaadna qaybta nafaqeynta iyo nutritional balance-ga qofku marka ay nudayaasha jirkeenu waxa uu ka samaysan yahay nudayaal ama wax loo yaqaano connective tissue ayuu ka samaysan yahay nudayaashaasi waxay u baahan yihiin way dhaawacmaan way dhintaan way dhibaatoobaan waxbaa ku dhaca waxay doonayaan markaa nafaqadii iyo faytamiinkii soo kabi lahaa ee ka qayb qaadan lahaa dib u bogsiishahooda iyo dib u habayntooda iyo dib u keenistooda faytamiinka waxaa la yidhaha vitamin C qudaar uu qani ku yahay oo dabeeciya ayaa muuqaalkeena dhex dabaalanaysa waa grape-ka waxa uu ka mid yahay qudaarta inta badan biyaha leh biyaha ama runtii energy-ga laga helo ee tamarta iyo awoodda qofku uu ka qaado waxa kale oo uu ka mid yahay qudaarka rabbi ku manaystay ee si gaaro gooniya ilaahay ugu deeqay faytamiinka la vitamin C complex kaasoo keena inuu nudayaasha iyo dhaawaca jugaha qofka ku dhaca iyo xanuunka garbaha iyo luqunta ilaa dhabarka ama marba meesha qofka xanuunaysa inuu ka qayb qaato bogsiishihiisa inuu qofku markaa uu dareemo weliba hadduu isticmaalo inay ku jirto maadooyinka aadka ugu fiican jirkeenna ee markaas iyo faytamiinkaas aynu tilmaamnay layaa vitamin C beta carotene baa iyaduna ka mida oo ka qayb qaadatay iyada qudheedu dardargelinta hawsha iyo in la sameeyo ama ay abuurataan in nudayaashii jirka dub loo helo taasi waa cinabka isticmaalkiisa sida caadiga intuu midhihiisa soo iibsado oo si fiican u meedho ayuu iska isticmaalaya waxa u shardiya inuu si constantly u wado ama continuously u wado yacni inuu joogteeyo inaku aynu ogsoonahay geygana Soomaaliyeed aanu aad qani ugu ahayn ama aan aad looga helin haddana dabcan marka aynu ka hadlayno dhinaca faytamiinkaas aad buu ugu fiican yahay dadka isticmaalaana inta badan nudayaasha ka dhaawacma ama ka dhibaatooda ama dadka inta badan meelaha qaar ama xumadu meel localized ay ka taagantay way ka bogsadaan oo way markaa dhibaateeyaan dhibaatadaasi meesha waa ay ka baxda haddaynu markaa u nimaadno qodobka qofku isku masaaji karo
ama meesha xanuunaysa uu saaraya hadday garabku xanuunayo ama luquntu xanuunayso meesha xumadu hadday tay qofka ka taagantay meel localized yacni waa specific area meel gooniya hadday tay laba goorba wuu ku masaaji karaa biyaha oo kulul oo diiran inuu qaado markay biyuhu aanay qofka maqaarkiisa waxyeelayn inuu saaro wuu ku masaaji karaa oo biyahaasi waxay kala saarayaan waxyaabaha dhiigga iskuntay ee systemkii raaci waayey ayay ka qayb qaadanayaan haddii markaa biyaha diiran laga yaabo qofku inaanu helin ama siyaabo kaleba uga cudur daarto biyaha qabow ee baraf kale caadigaana waa ku masaaji karaa taasi waxay keenaysaa dhiiggu inaanu kuntamin ama meeshii aanay fadhiisan oo hadhowto dhiiggaa kuntanay aanu dhibaato kale la iman oo u baahatay in la qalo ama operation lagu sameeyo ama markaa meeshii inay isku bedasho tumor iyo fiix iyo dhibaato laga yaabo hadhowto inay laftii qabsato biyaha caadiga ah ee barafka lagu rido ayuu saaraya ama biyaha diiran buu saarayaa biyaha diiran waxa u shardiya in aanay maqaarka gubaynin ama aanay dhibaato gaadhsiinaynin labadaa marka uu sameeyo cunista ula saaxiibo cinabka masaajkaana uu ku sameeyo biidmillah sidaas ayay kaga tegaysaa dhibaatadaasi oo markaa uu kaga raysanayaa oo ku bogsanayaa oo uu ku dareemayaa relief deganaansho xasilooni iyo caafimaad qab intaasu waa inta guud ama labeenta guud ee mawduuceenu xambaarsan yahay ee dabcan muuqaalkii aadka u koobnaa ee ku saabsanaa qaabka labada qaybood ee lagu daweyn karo dadka inta badan meelaha gaarka ah ee xanuunaan sida garbaha luqunta iyo inta badan dhabarka iyo laabatooyinku ay ka qayb qaadanayaan waa marka nudayaashu ay dhaawacmaan laakiin marka ay seeduhu dhaawacmaan iyo marka qofka lafta ay wax ka gaadhaan xilliyo kale ayaynu dabcan aynu kuwaa ka hadli doonaa waqti aad u wanaagsan iyo nolol qurux badan baan idin rajaynaynaa iyo caafimaad taam waxaa su-aale qabtaana soo weydiiya insha allah waananu idinka soo jawaabaynaa inta karaankeenna sida ugu macquulsan iyo sida markaa ugu dhaqsaha badan inta ilaahay naga waafajiyo fii amaan illah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh